السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله صباح وعنا وناكسن ويكاند وعنا وناكسن سبت وعنا وناكسن meel kastoo adduunka daafiisa ka joogtaan waa anigoo ah walaashiin Umu Huda channel. waxaan idin leeyahay meel kastoo adduunka ka joogtaan easy caafimaad ku noolaada. saakay waxaan idin la sheergeynayaa insha Allah quraac yar oo easy ah xaruurta aad iyo aad ugu fiican ma sha Allah. sida arkaysiin meeshaas 4 xabo oo kun ah ayaan ku soo qastay iyo maxaa la yiraahdaa qaado iyo wax yar sokor ah. waxaan ku daray cusbo fariisuul ah daawahaas yar baan dabka saaray insha Allah dabkana waxaan uga dhigay lambar 2 kala u geeyay hadii uu hay noqdo way gubanayaan. kadibna waxaan sameynaa rootigaas cad ee slice-ka ah ayaan rabaa inaan caruurta maxaa la yiraahdaa aan quraac uga dhigo haduu Ilaahay ogolaado. waxa iga dalbadeen 3 waaweyn oo dheen hooyo noo samee kaasaan rabnaa saakay. marka ma sha Allah hadii ilmahaaga miisaankiisa uu hooseeyo kaleeto waa wax maxaa la yiraahdaa dhaqsi miisaanka ilmaha kor u soo qaadayo. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidi doontiin insha Allah. casri ahaan caruurta waa u siisan kartaa casho fudud ahaana waa u siisan kartaa wax uu diidaya ma lahan. marka saan oo kale aad samaysid waxaad aad saa usoo samaysato kale aad soo dhameystirto waxaad sameyn kartaa marka saxanka aad ugu diyaarinayso inaad maxaa la yiraahdaa malab yar oo kale ta korka uga darto inaad fruits kor aad uga saarto. Allahu musta'an waxaad sameyn kartaa kale jam inaad u raaciso wuxuu diidaya ma lahan ma sha Allah. waa rooti soft ah ma sha Allah gudahana proteinki oo dhan ka qaatay ukunta. marka waxaan idin leeyahay insha Allah walaalahay aan jeclahay caruurta insha Allah la ogaada haduu Ilaahay idmo waa ka faa'iideysan biidmi Rahmaan. marka haduu Ilaahay raad aan marka had saan oo kale u soo dhameeyo fruit waxba ugu madaray laakiin waxaan rabaa inaan ugu daro pancake sauce-ka lagu darsado sida malabka oo kale ta ah ba insha Allah dusha uga daadin doona iyo wixii ayaga ay dalbadaan ee kale markaas haduu Ilaahay ogolaado iyo koobkooda caanaha u dhiibaya intii ma sha Allah subax hore maadaama ay tahay quraac kale ta aan ka diyaarinayo insha Allah oo la isku soo wada toosay miiska la wada tagaayo. waxaan sameynayaa inaan wax yar oo fudud oo afka ku sii qabsadaan maadaama oo winter lagu jiro oo winterkana mar waliba sidiisa iska gaaja badan yahay. taas aan idin la sheer gareynayaa insha Allah. waxaan idin leeyahay ka faa'iideysi wacan. waxa kale oo idin leeyahay ma sha Allah walaalaha gadaal ayaan taan nooga soo biiraayo waxaan leeyahay qalbi furan gacmo furan niyad saafiya ku soo dhawaada walaalahay aan jeclahay. daawashadiina aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin ma sha Allah dhiirigelinta iyo commentiyada quruxda badan aad ii soo diraysiin waxaan idin leeyahay jazaakumullahu khayra. waxaan idin leeyahay qalbiyadiina wanaagsan Ilaahay waxa weeyaan ma sha Allah Ilaahay raaliha idinka noqdo dhamaantiin ما شاء الله saani ku soo baxdo quraacdii walaalahay waxay dhaheen jam dheeraada noo saar laakiin asagiyaaba macaan inay cunayaan ila ma ahan. wakaasa waxaan ugu daray sauce kaasaan dusha uga daadiyay. qof kastana ma sha Allah galaaskiisa caanaha oo qandaca ah baa u raacinaysaa ma sha Allah intii waxa weeyaan wax kale oo la cuno laga gaarayo waa wax ma sha Allah lagu sii sugi karo casriye ahaan ma diidaayo oo casriyaad ka dhigan kartaa adigoo ma sha Allah xilli dheer casho siisay hadii marka aad sii seexinayso kaleeto xabad rooti iyo koob caano isku qabsadaan ma sha Allah iyadana. marka waxaan idin leeyahay walaalahay aan jeclahay intaan videoga xiga aan ku kulmayno. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan idin leeyahay insha Allah subscribe dhag ku sii insha Allah like ta. salaamu calaykum.